maalin kale waxaan ka wada hadlaynaa haddana maanta xaguu maraya bitcoin iyo cryptocurrency-ga dhinaca marayaan. Maanta waxaa lagu leeyahay best month baa lagu leeyahay bishii ugu fiicnayd gains since the October October 2025 things to watch for bitcoin this week. Shan waxaa la eegi karo bitcoin u samayn doona this week iyo cryptocurrency-ga. sidii la ogaa bishii hore July bilxun bay ahayd, waxaa jiray fedkiiba wax kasta kiciyey oo dadku hataa si kor weerarsanayeen. Marka dadku inta badan lacagtii ay geliyeen bitcoin waa kala saabaxeen. Bishana imika waxaan galinaa Augusto waxay is leedahay waa bil fiican. Waxaa la filayaa inay ugu yaraan $6,000 inay ku biiri doonaan bitcoin ilaa inta sanadkaas socda. Marka waxaan waa imika wax korayo oo dadka inta ka wada hadlayaan oo inta information la wada qorayo. Okay, intaanan aan akhrin kan waan chat-ka eegnaa maanta. Waata chat-ka waa kan maanta. Haddaa u fiirsataa maalinta Axadda oo ay shalay ahayd bitcoin markasta waa yara daciif. Taas wax kale maaha maalintaas. Maakta kale ma furna. Marka bitcoin markasta wuu yara dhaca. Marka waxaan maanta waa Isniin galab. Marka marka waxaan aragtaan dee inuu yara dhacay maanta 1% iyo 70 iskali buu dhacay. Waa caadi, waa wax dhacda oo lagu yaqaano bitcoin markastaba. iyo kuwa isu markuu dhacaan waa godfatherka ku kala wada dhacaan, laakiin waa iska caadi. Laakiin ma arkaysaa dee imika inuu sida wiigagii hore ka safiicnaa. Imika 19,000 marya la wiig hore waxaa yaraan 15,000 oo pound buu ahaa. Ma aragta imika 19,000 waa waxay noqonaysaa yaraan $24,000 bay noqonaysaa. Ma aragta marka imika wuu saa fiicnaanayaa, wuu soo kordhayaa. Aniguna haddaan bitcoin-ka asalkiisa haddaan galno waata anaga galnay. Marka maanta waxaan eegaynaa bal chat-kan eegaynaa. Chat-ka shalay wuu yara dhacay, intaasuu gaaray. Maanta intaasuu maraya. Ma aragta markii ugu sarreysay intaasuu marayay. Markii sarreysay intaasuu marayay haa noqo. Maantana intaa u dhacay, laakiin markaasuu imika saa fiicnaado intaasuu imika maraya. Marka waxaan waa up and down. Laakiin maalinta Axadda waxay egtay maanta ugu xuntahay bitcoin-ka. Maanta lagu trade gareeyo dadka badan baa off base ka qaataan ma trade gareeyaan. Marka caadi wuu dhacaa. Laakiin waxa imika arkaysa waxaan wax soo socda wax imika la isleeyahay waa wax kori doona oo mustaqbal dhinaca marka la eego. Maanta wax kale saa ugu cusub ma jiraan, laakiin waa steady wuu ka fiican yahay siduu ahaa markii hore. Bal aan ku noqon newska meeshan dib u akhrin markaan chat-ka maanta eegnay. Waxaa lagu leeyahay bitcoin starts a new week cusub bilaabay. Isna akhrina imika. Marka weekana waxay egtahay inuu week ka fiican yahay iyadoo uu ka recover garin after intense week of July. July bil xun ay ahayd maalinta xaggan hoose. iyadoo July bil xun ahayd. Marka July uu ka recover gareeyay, uu ka fiicnaanaya. The road of recovery to continue until some point the recent week seems the bitcoin will suffer even back in June. Marka June wuxuu luusay 40%. 40% dab buu luusay bitcoin. Taas wax kale maaha. Dad badan baa iibinayo ka baqay inay waxay fedku sameeyeen Federal Reserve kuwa bangiga waxay samayn doonaan. Marka aad buu dhacay. Marka July in yar buu ka safiicnaaday. Maantana August baan ku jirnaayo waa ka soo noolaaday imika aad buu safiicnaaday. Marka waxaan wax baantay progress education baantay waqti badan bay u qaadanayaa. Maaha maantii bariba wax laga faa'iideeyo wax maaha. Wax u baantay education qofkan la socdaan waa akhriya. Saan sheegna markastana waan xagoosan ku soo qoraa article-ki waxaan akhriyo waan ku soo qoraa si dadku uga faa'iideystaan. Dawaata qofka markasta la socdo waan akhriyaa waan ka faa'iideystaa. Like subscribe type as well si qofka uga faa'iideysan karo information-ka maalin kasta saa duubno. Marka aan hoos yara degno waxa lagu leeyahay spot price snatched back bear market trending the terms bitcoin July performance things are happening lots worse. Trendingkii dadku markay wax ku cusub yihiin oo doonayaan wax markay ka faa'iidaan trend baa la yiraahdaa haddana markii waxay ka faa'iidaan taasaa dhacday baa lagu leeyahay July iyo June.
marka dadkii lacagta badnaa way sii ceshadeen oo waxay gashadeen bangigooda u gashadeen. laakiin imika waxa lagu leeyahay the sum of those to enters the final month or contract takes to look the potential market higher for Bitcoin laakiin bishan oo Agosto imika bilaabanaysa dadku ma garanaya waxay filayaan, laakiin waxa lagu leeyahay dadka wada positive bay ka filayaan. maaragta chatka waan kusoo noqonay, marka waad aragtaan intii aan yara maqnayn wuu kordhay, intaasuu gaaray, marka waa ka wali koriya, marka wuu soo noolaanaya wiigan wuu soo noolaanaya. ana waxaan isleeyahay saan walba sheegay bil kasta bishan ilaa intaan ka gaarno sanadka soo socda uu yaraan $3,000 bil kasta ku biiraya. iminka popular buu noqonaya, macluumaadka Afrika aad baa lagu isticmaalaa, adduunka aad baa lagu isticmaalaa, qof walba Coinbase iyo Binance uu furan karaa. marka haddaan iminka saacadii ugu dambeysay intuu trade gareynayay, saacadii ugu dambeysay intuu haba fiiriya, intaas waa saacadii ugu dambeysay, iminkan intaasuu marayaa. maaragta intaas isaar dhacdaas originalka live-ka marka waa aragtaan waa wax imika popular si socdo kordhiya. marka waxaan dadku waxay baahan inay akhriyaan oo ka faa'iideystaan oo markasta la socdaan. like subscribe taabta dad channelka cusub si offer ka faa'iideysan karo. waana beri aad mahadsantiin. maalin kasta marketka waan eegnaa.